diinta ugaasha iyo haweenka inta waan salaamaya waxa aan ilaahay idinka rajaynayaa inay noqoto degma barwaaqo iyo baraara ilaahay kusmo inay noqoto tii martida iyo maatadaba daadiisa inay noqoto mid aan qabiil ku dhisnaan ee qarannimo ku dhisnaata waxa halkan laga hadlay oo ay dad badan ka hadleen ma ahayn inaan iyadu macallimiintaydii iyo taliyaashaydii joogeen halka hadlay maxamed kaahin iyo muxuu ahaa yaasiin faratooniya ay halkan joogaan waayo waanu ka inta badan waa ka gaabsan jirnay meesha ay joogaan macallimiinta iyo madaxdaadu joogaan waxaa lagu soo noqnoqday erayga la yidhaaho reer hebel reer hebel reer hebel waa nimanka faanka weyn lee ay ka mid yihiin maxamed kaaliya halka ka faanaya eeda halkan ay mujaahidiin ka ahayd waxa weeye waa kuwan habeen walba halkan xabaddu isweydaarsan jirna markaana faqashta ahaa waa kuwan xabadda isweydaarsan jirnay aad baan xasta muddo badan baa joogay dhammaan faqash waynu wada ahayn waxaan leeyahay waktigii dagaalkii ayaa lagu ururin jiray dadka waar intaasoo askari keen intaas suldaan hebelow intaa askari keen caaqelow intaasoo qofkeen oo qabyaaladdu meesha ay naga soo dib noqotay